markaad tiraahdeen magaalada hawadeedu waa ka macaan tahay intii hore markaad tiraahdeen cuntadu waa ka dhadhawacan tahay markaad tiraahdeen shimbiraha codkoodu waa ka macaan yihiin sidii hore yaan idiin imid midaan maqnaayo siifad xoogaa xagga bariga iga soo dhacaysaa waa jirtaa taana waynu qaadaynaa insha allahu tacaala waxaa laga yaabaa noloshu waxay ku muxuu yidhi cali dhuux aadan ilaahay hadduu kuu roon yahay noloshu inaad dhimato noloshu marbay noloshu dhaantaaye ilaahay hadduu kuu roon yahay waxaa kaloo uu yidhi dagaal waa jeclaa xaaja aduugu aydan waxaanu yidhaahdaan qolyahan cilmi nafsigu 100 sannadood oo aad sida bisada u noolaato oo reero guryahood aad ku noolaato maalin oo sida libaaxa aad u tallaabsataan allahu tacaala inta jecelina sida bisadaha u noolaadaan waxaynu oranaynaa sida libaaxa u socda insha allahu tacaala ilaahay waxaynu weydiisanaynaa guushan iyo nasrigan uu ina siiyey inuu inoo dhammaystiro guushan idinkaa leh ilaashada haddaan adigu aad aragtaan anoo waqooyi u sii jeeda boodhiga jafa nin kalena iska badaaya guusheenna waynu ilaashanaynaa ilaahay intii ku shahiiday shuhada nolol shuhadaha siiyo intaynii ay ka tageenna nolol macaan oo xorriyad leh oo iyagu ayna siiyeen ilaahay haynugu nooleeyo dagaalku wuu dheeraan doonaa haddayan reer Sheekh Isxaaq go'aansan dalkan inayan iyagu lahayn dalkan waxaa leh dad kale taladiisa cid kale ugama ogolin nin kale inuu ka taliyana ma ogolin maalinta ay taagartaan baa nabadi dhacaysaa maalinta ay guryahoodu ku noqdaan ee ay dalkeenna inooga baxaan baa nabadi kow noqonaysaa guur iyo gobonnimo اللهم صل على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه خير الله يديس دجلتين فعولا النكوب الكريم بانو يدين قبنا يا الله يدي شعلاده كوشاد هرسيدين إلهي قبل وعنها كنا ميجو إلهي ساسا إنه كبر يينا أنيقو وحانو ملينيا متسلية 10 سنة إيا قوضو مقالنا وكمغنا waxaan uga maqnaana waxay ahayd inaanan dulli la darsin maanta marka Ibrahim Cabdiqaadir Jabaan warbaahinta Kalshaale Laas Caanood